الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في العقيدة، waxaan isku dayi doonaa haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala inaan kelimaad ka idhaahdo mawduuca si loo bixiyey fahmi alxayaa ama nolosha iyo fahamkeeda. garashada aynu garanno noloshan adduuniyo iyo waxaynu ugu noolahay waxaa ka ratibmaya acmaasheenna iyo waxaynu la qasdinayno. nolosha oo la gartaa waa arrin aada u muhima. waxaan isku dayi doonaa inaan in badan idinku akhriyo nusuus badan oo min kitaab illahi wa sunnati rasuulihi sala allahu alayh waalihi wasalam ah, oo aan aada u jeclahay iyaga ururintooda keliya haddii laydin maqashiiyo inaa mawduuca waxaan uga gun leeyaa fahmi doontaan. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa inoogu tilmaamay inuu qofka bini aadamkaa abuuray, dhoobo ka abuuray, dabeetana ruuxu ku afuufay. ilaahay subxaana wa tacaala inuu u doortay qofka bini aadamkii inuu noqdo khaliifatullaahi fi lard, ama inii jaacilun fi lardi khaliifa. waxaa kaloo qur-aanku uu inoo tilmaamayaa intaa dabadeed taariikhda qaybkiiee qur-aanku uu ka warramo mid ka mida waxay tilmaamaysaa in noolaha ama kownka baan idhaahdo doorasho la dooransiiyey, dabeetana bini aadamku uu doortay. qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ina acradna alamaanata cala asamaawaati waalard waaljibaala faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kana daluuman jahuula. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamaya in loo soo bandhigay ammaana, shay uu qur-aanku ku tilmaamayo cirka iyo dhulka iyo buuralayda iyo waxoo dhan, dabeetana ay diideen iyagoo naftooda ka dhowraya oo ka cabsanaya inay qaadi kari waayaan. fa abayn ayaa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. dabeetana insaanku uu xambaaray ama se uu aqbalay. diidista lagu tilmaamay iyagu inay diideen lama mid aha tii ibliis oo kale, ee fa abaadii ilaahay ibliis uu ku tilmaamaya lama nooc aha. waayo ibliis amar baa isaga la siiyey, laakiin qoladan qadiyadooda waxay ahayd cardin. ina caradna lamaana baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. waa loo soo carday, waa loo soo bandhigay. iyaga ikhtiyaarka la siiyey inay doortaan qadiyadda. ibliis laakiin amar buu isagu ahaa inuu sameeyo, deetana wuu diiday. waa mid labaadee ibliis isagu istikbaaran buu u diiday iyo isla weyni, laakiin iyaga ilaahay wuxuu leeyahay faashfaqna minha. iyagu istisqaaran bay u diideen, iyagoo isdhul dhigaya oo arkaya inaanay qaadi karaynin. insaankuse wuu qaaday. shaygaasi ammaanadae insaanku uu qaaday
waan odhan karno waa waxyaabaha dhaxal siiyey inuu noolaha kale ka gadisnaadaa maxay tahay ma inuu alla caabudaabaa oo cibaadada makhluuqaadka kale miyay diideen sawka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya ثuma اstawىa ilى الsamaaءi wahiya dukhaan faqaala laha walilardi itiyaa طawcan aw karha qaalata aataynaa طaa'iciin iyagoo muطiiciin oo caabidiin lilahi subxaanaه wa tacaala u ah sawka ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya in alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi الsamaawaati waman fi اlأrض wالshamsu wاlqamaru wاlnujuumu wاljibaalu wالshajaru wاddawaabu wakaiiru min الnaas kuwaasoo dhamme allay caabudayaan tusabixu lahu samaawaatu الsabc wاlأrض waman fiihina wain min shayin laa yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum idan kownka oo dhamme ilaahay buu caabudaya subxaanaه wa tacaala waa maxay wuxuu kaga gedisan yahay hadda muxuu kaga gedisan yahay ma inuu caaqil yahay sawka qur-aanku tilmaamaya maaha noolo kaloo dunida ku nooloo caqli leh inay jiraan bale qisatu sulaymaan sawka qur-aanku inoo tilmaamaya maaha in shimbir uu ka soo warramayay malikatu saba iyo qadaayaadkeedii oo dhan iyo ilaahay kayrkii inay caabudaan iyo waxaasoo dhan yacni inuu fahmayey maa xawlah iyo waman xawlah gabadhaas iyo waxa agagaarkeeda joogay waxoo dhan inuu wada garanayay bale sawka hudhudku tilmaamaya maaha yani miyaanay ahayn xaqiiqa uu inuu fahmayey kownkan iyo waxyaabaha ka socda iyo dadkani waxay samaynayeen waxaasoo dhami maxaa haddaa insaanku uu ku soocan yahay ma inuu siday kuwan gaaladu yidhahdaan xayawaan ijtimaaciya yahayba may xayawaanada ijtimaaciga caalamka way ku badan yihin waxaynu leenahay insaanku wuxuu ku soocan yahay inuu doortay ammaana ammaanadaasina waa shayga insaanka dhaxal siinaysa inuu khilaafada loogu talagalay u fuliyo waxaynu odhan karnaa insaanku wuxuu soo maray laxdo doorasho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doorasho geliyey waxaa loo soo bandhigay baynu odhan karnaa noolaha in ay nimco ku waaraan haddii ay aqbalaan oo ay la yimaadaan nimcadaasi shuruuda ay ku xidhantahy oo ah inay imtixaan galaan ama musaabaqa inay galaan oo cidda ku guulaysataa ay hantiyayso markaasi almulki alkhaalid nolosha adduunku markaasi si aynu u fahamno waxaynu odhan karnaa waxay tahay waa daar alibtilaa ama waa daar alimtixaan ama waa meel qofka bini aadamkaa loogu talagalay in lagu itixaamo oo loogu itixaamayo imaa inuu guulaysto oo uu janno abadiya galo inuu guuldarraysto oo uu naar abadiya galo laakiin bishart inuu janno abadiya galaa inay ku xidhan tahay imtixaanka loo qariray inuu galo oo ku guulaysto ammaanadaasi aad takaaliiftaasi inuu xambaaro ayuu aqbalay bini aadamku oo hadduu ku guulaystana inuu janno galo hadduu ku khasaarana inuu markaasi naar gelayo waxaynu leenahay waxa alle subxaanahu wa tacaala markaa bini aadamka siiyey imkaaniya ficli alkhayri washar ama inuu shar iyo khayrba samayn karo waxaynu leenahay sida ay cadaabtu u tahay ansab daarin litacdiib oo ay jannadu u tahay ansab daar meesha ugu fiican ee la isugu nimceeyo ayay dunida iyo qaab dhismeedkeedu wuxuu yahay sida u fiican ee laysu itixaamo dunida iyo qaab dhismeedkeedu waa sida ugu fiican ee laysu itixaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ku tilmaamaya alxayaati اdunya bisamaawaatiha wa ardiha cilalka ka dambeeya inuu ka mid yahay in basharka lagu itixaamo waa ka alle qur-aanku leh subxaanaه wa tacaala wahuwa aladii khalaqa الsamaawaati wاlأrضa fii 6 أyaam wakana carshuhu calى اlma liyabluwakum ayukum axsanu camala alibtilaa aw اlimtixaan
in la isku itixaamo ayay samadan iyo cirkan iyo dhulkan iyo waxaan oo dhami u dhisan yihiin. waxaan leenahay waxaa cilaaqada insaanka iyo zamanka ka dhaxeeya ee geeri iyo nolol iyo tatawurkan tirada badan leh bini aadamku marayo waa dhammaantii waxa loogu talagalay alladii khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala insaanka wuxuu ka dhigay mid fahmaya kownkan uu ku noolyahay oo samiican basiiran buu ka dhigay. inaa khalaqna alinsaana min nutfatin amshaajan nabtaliihi baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala in la itixaamo daraaddeed. bale waxaynu leenahay caalam lgayb iyo caalam shahaada baa ilaahay nolosha u qaybiyey. wax la arki karo iyo wax qayb oo maqan. waxa sida looga dhigay in bini aadamka la itixaamo. hadday wax waliba mushaahada wax walba indhaha dadku uu saari lahaa imtixaanku iska yaraan kari lahaa. walidalik ba maalan xadiidka bukhaari haddaynu u fiirsanay kitaab uljanaa'iska uu ku soo arooriyay imaam albukhaari wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka bini aadamka ah marka xabaasha lagu rido ee dadku ay ka jeestaan inuu maqlo yacni sanqadha kabahooda inuu dib u maqlo oo dabeetana laba malag ay u yimaadaan oo ay weydiiyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintiisa wuxuu ka odhanayay. oo hadduu mu'min yahayna waa shahaato ilaahay iyo rasuulkiisaba uu qiro. haddii uu de munaafiqa ama kuwaasi gaalada ahaa laana uu odhanayo waxba ma garanayo oo ay ku odhan doonaan waxna ha garanin dabeetana inay garaaci doonaan. xadiidka maxalu shaahidka aynuga soconnaa wuxuu yihi waxaa lagu garaaci doonaa buu xadiidku tilmaamayaa bimataariqin min xadiid. dabeetana dhawaaqa ka baxa waxa maqli doona man yaliihi hayru haqalayn ayaa maqli doona. wax allaale iyo waxa u dhow oo aan ahayn jinka iyo insiga. waxan kale xaqaa'iqdaasi xabaasha ka dhacaysa waxay u maqlayaan iyagu imtixaan kuma jiraan. laakiin bini aadamka waa laga qariyey si loogu itixaamo daraaddeed. isagu kuma jiro, isaga iyo jinku kuma jiraan kuwa maqlaya. waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala nolosha wuxuu u qaybiyey wuxuu qofka bini aadamkii ogaan karo iyo waxaan ogaan karin. qiyaamaha dhicistiisii baa ka mid a. waa qofku goortuu dhimanaya ama geeriyoonaya ka mid a. waxyaabahaasoo dhan waa la qariyey. waxa loo qariyey in qofka lagu itixaamo. caalam shahaada qofka ilaahay wuxuu uga dhigay adawaatulcilmi buu siiyey. samiican basiiran baa laga dhigay. saaxibu fu'aad baa laga yeelay. kuwaasoo dhan waxa loo siiyey bayn leenahay in la itixaamo. noloshu qaabka ay u dhisan tahay oo dhami bayn leenahay waa qaab ku salaysan alibtilaa. nolosha fahamkeeda xaqiiqiga ahi wuxuu yahay inuu qofku garto xayaatada adduunyo inuu u joogo in la itixaamayo. inaad ku raaxaysanayso iyo inaad ku barwaaqaysato yani ma aha. nolosha adduunyo waxaa loo joogaa ee loogu nool yahay inaad tahay qof imtixaan ku jira. imtixaankaasi natiijadiisuna maalinta qiyaame inaad la kulmayso oo aad ka mid noqon doonto markaasi kuwa janno loo dareeriyo ama aad ka mid noqon doonto kuwa cadaab loo dareeriyo. si imtixaanka bini aadamka loogu dhammaystiro ayaa ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka wuxuu ku abuuray jawaanib caatifiya, jawaanib shahwaaniya. waxaa lagu abuuray qofka bini aadamkii xoolo jacayl, boqortooyo jacayl, sultaannimo jacayl, waxyaabahaas oo dhan. waxaa bini aadamka lagu dhex nooleeyey nolol loo sakhiray oo loo fudaydiyey. qofka bini aadamka waxaa alle subxaana wa tacaala uu noloshiisa ka yeelay qof dareemi karaa dhibta, gaajada, xanuunka, murugada, baqaha, tiraanyada, werwerka, waxaasoo dhan inuu dareemo. waxa kaloo nolosha laga yeelay waxaasoo dhan wax ku sababi kara inuu baqo, tiraanyoodo, werwero, murugoodo. waxaasoo dhan wixii sababi lahaana isaga waxa laga dhigay inuu qaabiliya inuu leeyahay waxaasi inuu dareemo. kownka dhammaantiina waxa laga buuxiyey waxyaabahaasi wixii qofka ku sababi lahaa inuu dareemo. waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu nafta bini aadamkaa ku tilmaamaya zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. waxaa ilaahay tilmaamaya nolosha gebigeeduba
حتى عرورت الله دلي وحد من امتحان واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وحال سبحانه وتعالى تلمامي حتى الملك يوحى كرسارين اللقو قرحية يودمي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم بإلهي سبحانه وتعالى حلنا مركا شخص بني آدم كي قابك الله وأبوري iyo kownka uu ku dhex nool yahay qaabka loo abuuray iyo xidhiidhka ka dhaxeeya qofka bini aadamka iyo nolosha dhammaanteed waa qaab ah in la itixaamo qofka bini aadamka xayaatu linsaan bayn leenahay markaa haddaynu rabno fahmi alxayaati dunya min awaliha ila akhiriha waa imtixaan waa mashaqa laqad khalaqna alinsana في كبد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه لا بد من كبد ولا بد من كدح نولش حدين للربين لفهمه ونولل كسا ليسان امتحان واحد شرته مثلا أنا رنكرنا الفلسفة العالمية مركا لا يسكد ولا درجة جوانبتك لقديسان أردن مركا يسكد بيان inay sharxaan nolosha guud ee bini aadamka iyo qaabku u nooliyay dhib baa jirta falaasafo kasta caqligooda daalisa oo ay sharxi kari waayaan maxaa dunida sharku u jooga waxaa laga yaabaa bacd kristanka ka mid ah gaar ahaan Jehovah Witness iyo qolyaha la mid su'aalaha koowaad hadiyo goor dadka muslimka ay ku wajahaan ama ay weydiiyaan waxa weeyaan ilaahay hadduu raxmaanur raxiim iyo caynkan iyo maxaa dadka badh u dhibaatoonayaan oo gaajoonayaan caynkan ugu dhacayso yaanu ilaahay raxiim ahayn oo raxmaan ahayn oo caadil ahayn oo caynkan kaanama ay jecel yihiin inay ku sawiraan sifaadkani nooc min adulmi inay tilmaamayaan hadduu kuwa ku sifoobay waaqacana lagu hayo dad dhibaataysan oo mushkilaadka dhahay laakiin waxay leenahay nasqi falsafiyo caalamka kor yaala oo sharxaya alxayaati dunya ma jiro illa alkitaab wa sunna mooyaane waxay leenahay dunidatan inay mushkiladani ka jirto oo ay qaabkan u taalo oo waxaanoo dhibi yaaliin aslan baa loogu qastiyey waayo waxaa loogu talagalay in la isku itixaamo waxaa la tilmaamaya subxaanahu wa tacaala bini aadamka in khaliifatullaahi fi lardi laga dhigay sababtuna waxay tahay in la itixaamo wahuwa aladii jacalakum khalaa'ifa alard ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم بإله إليه ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون حياتك سينة سنين حتى منزلة الخليفة إن يتهي إن لينا أغب الوحي نقبلنا إن لينا يتحامى واحد بني آدم كاللوغية لي inuu qaad bulsho u noolaado inuu reer yeesho inuu xadaaraad yeesho inuu duwal yeesho الظواهر الاجتماعية waxa lagu tilmaamo social systemsku inay jiraan waxa loogu yeelay in la itixaamo وكذلك فتنا بعضكم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu bini aadamka uga yeelay kuwo ku kala gedisan arsaaqda cilmiga caqliga xoogga caafimaadka quruxda deeq wax kasta kuwo ku kala gedisan si loo itixaamo waxaan leenahay xataa xidhiidhka ambiyada iyo bini aadamka ka dhexeeya wuxuu yahay in la isku itixaamo rusush wamaa arsalnaa qablaka min almursaliin إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون بإله إليه سبحانه وتعالى وكايدك لا إله إلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا مجتمع وحل لوكالة تكسية لوكالة تفرارقية in la isku itixaamo waxa badh qani looga dhigay ee badh faqro looga dhigay ee badh loo curyaamiyay badh dhibtu u haysato in la isku itixaamo waxay leenahay bal ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka mid quru ka dhigi kari lahaa waxa midabada loogu kala yeelay ee qabaa'ilka looga kala dhigay
شعوب الله كلا دقي إن امتحان كان قلع ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بإلهي ولكن ليبلوكم فيما آتاكم الوأود كري سبحانه وتعالى إنه أمة واحدة إذن كدقوا في كل الأشياء لكن لا إذن كما دقنا وحلا إذن كدقوا مجتمعات مختلف كلا أو كلا قدسان أو كلا فوق سببتنا وحيتهاي إن لا يسكوا التحامل هدان وردن صوك وبوحا لنا فهم الحياة وأرى إسكك كوبان بينكو شرح كرنا نلشة لمان تيد معنى كلا يستمعين سامتشرته اللهم إلا الاختبار والامتحان نيتيت المويان وتجربة ابتلائية وحقرآن قوت المامية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلهي بوحليه سبحانه وتعالى وحندكو اتحامية قاتشو بقى حولياري نفياري وحاصر دبا ولنبلونكم بالله إلهي بوحليه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور قفك بني آدم كايلا وحقو تلقلين لقو اتحامه بالآلام هدي قاتشتي هدي فقرتي هدي موتي هدي مصائبتي إيا هدي تي دباتوين كبدان إيه ظالمين تصبين يعني ظالمين توحى لقو اتحامي بالسلطة والقوة وحكاني إيانا بالصدق واستعمالنا من نوع يقلان اللي أهب وحين لنا مركة إيمانكم ووجهك حقيقي إلا ربا إن لوغا جوابا امتحان كاس هدو لبيا مشكلة دي هينا إن لنا صبره سيدي لوغا بحلحانا إلهي لو تلا صارت الله عمل قلم هدو حلقوه اتحامي النمعاء سلطان جاهي قرحي وحلا نوعيين ونوع من الامتحانات إن إلهي لوغا مهد عليه سبحانه وتعالى الله مهد نقو تجربته هدي بالنعمة امتحانكم هدو بالنعمة هدو بالنقمة وسوا وامتحانه داد سلطانية حول بدنية النمعائية وحان هيستان ونوع من الامتحان هدي فقرية قاتشية ابتلائية مشكلة كنجرة ونوع من الامتحان وجهك كلية وقفكم امتحان كاسيك قدبانه وهدي مشكلتها هنا إنه صبرك يا وحن ولا يماضه هدي النمعاء يا برواقة يا برارة يا كانت هنا إنه شكر الله يماضه وحن لا نمرك قفك صابرك على الابتلاءات المؤلمة أما شاكرك كوى على الابتلاءات الممتعة قفك شكر النقية إيا قفك صبر يلا بضبا ابتلاءك كان وكسيبتا مركا النمعاذا أما بلدس أي ولي ما دان وجهي حقيقي للربين يوجد جوابان سيد درادات وحنا نكرنا ابتلاءات dadku way ka warwaraan waayo noloshaanay saani u fahmin dadka badh waxa warwar badan uu ka haystaa qof baa laga yaabaa in mushkilada qabsato ama waxyaabo badan markaas waxa laga yaabaa inta badan faham qaldan inay dadku ku sharxaan laakiin waxa leenahay waxa dhici karta ibtilaagu inuu u yimaado lirifca in qofka la kor yeelo daraadeed si uu qofku u gaadho أقصى درجات الكمال البشري وأنو سكة لكو قاري كريم إلا الابتلاء موياني ولذلك أي حديث كورين أيه مصعب بن سعد بن أبي وقاص ويلكيس وأبيه كورين أيه إمام الترمذي وصاصاري ولاية وحسن صحيح الباني الصحيح حديث وكنت صحيحين أيه والنبي يقول عليه الصلاة والسلام صحابي كان باو حكوي للنبي قلت يا رسول الله
أي الناس أشد بلاء dadka yaa ugu bala badan yaa ugu dhib iyo mushkilad badan dadka ayaa nabiga la weydiiyay calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu ku tilmaamay alambiya dadka waxa ugu dhib iyo mushkilad badan alambiya xadiisku wuxuu leeyahay thumma alamthal falamthal wuxuu kaloo dadku u kala dhib badan yahay siday u kala fiicni badan yihiin ama laagtii ugu kala dhow yihiin xadiidku wuxuu kaloo tilmaamaya fayubtala arajulu calaa xasabi diini qofka in la itixaamo oo ibtilaagu ugu yimaado hadba diintiisu intay leegtay graafka iimaankiisu markuu kor u kacaba ibtilaa'aadkuna inay kusii bataan markuu hoos u dhacana in ilaahay ka yareeyo fain kaana sulban hadduu adag yahay oo diintiisu ay xooggan tahay ishtadda balaa'uh wain kaana fii diinihi riqa ibtuliya calaa xasabi diini buu nabigu leeyay diintiisa haddii jileec ku jirana waxaa loo itixaamaa hadba inta ay diintiisu leegtay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi wuxuu leeyahy famaa yabraxu albalaa'u bilcabd xataa yatrukuhu yamshi maa calayhi khati'a imtixaanka iyo belada iyo masaa'ibtu qofka kama suusho ee waa lagu wadaa buu nebigu leeyahy ilaa iyo qofku uu xad gaadho inuu dhulka kor socdo isagoo aan dembi saarayn idan waxaan leenahay balaagu wuxuu yimaadaa lirifca in la kor yeelo waxaynu odhan karnaa ibtilaaga iyo imtixaanku waxay u kala badan yihiin siday dadka diintoodu u kala badan tahay welibaan si kale u tilmaamo waxaad taqaaniin ardaygu markuu dugsiga hoose ku jiro imtixaan khafiifa laga qaada kullamaa aqoontiisu ay sii korodhaba imtixaanaadka iyo qaabka loo sameeya way kasii adkaadaan markuu heer jaamici gaadho qofku qaabka loo itixaamo wuu ka adkaadaa qofkii dee elementary ama dugsi dhexe ku jiray ama dugsi thaanawiya ku jiray idan darajaadkiisa cilmiga iyo aqoontiisu markay sii korodhaba imtixaanaadku gelaya way sii bataan fakadalika almu'min kullama irtaqa fi darajaati aliimaan sulami liimaanka markuu kor u koraba waxaa sii bata imtixaanaadka la gelinayo si ay u sii badato darajaadka uu gaadhayo walidalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi imaamu tirmidi warinaya xasanun saxiixa uu ku tilmaamaya sheikhu alalbanina uu ku raacsan yahay wuxuu nebigu ku tilmaamayaa famaa yabraxu albalaa'u bilcabd xataa yatruku yamshi maa calayhi khati'a inuu lirifcayay waxyaabo badan baa tilmaamaya xadiidkaasi aynu tilmaamnay waa ixda riwaayaat riwaayo kale waxay tilmaamaysaa ashad الnaasi balana alanbiyaa uma الصaalixuun in kana axaduhum layubtalى biاlfaqr xatى ma yajid axaduhum ila alcabaءaة alatii yaxwiiha wain kana axaduhum layafraxu biاlbalaa kama yafrax axadukum biالrakhaa wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam in dadka ugu imtixaanka badan la ambiyada yihiin dabeetana saalixiintu ay ku xigto midkood buu nebigu leeyahay saalixiintaasi faqri baa lagu itixaamaa ilaa ayaanu waxba ka haysanaynin cabaa'ada yare uu huwan yahi mooyaane wax kaloo haysta aanay jirin laakiin buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam balaaga iyagu waxay ugu farxayaan sida midkiin idinka uu nimcada ugu farxo sida xoolaha iyo adduunkan iyo waxaan ugu farxdaan ay dadka saalixiinta ibtilaaadkan ay ugu farxayaan buu nebigu ku tilmaamaya bale axaadiista saxiixa ee nebiga ka soo aroortay waxaa ka mid ah inuu nebigu ku tilmaamaya ina cidam aljaza maca cidami albalaa abaalmarka weynidiisuba inay ku xidhan tahay belada weynideeda waina allaha idaa axaba qawma ibtalaahum waliba nebigu wuxuu leeya calayhi الsalaatu wasalaam qoom hadduu alla jeclaado subxaanaه wa tacaala ilaahay wuu itixaamaa faman radya falahu ridaa waman sakd falahu sakd cidda raalli noqotana raalli buu leeyahay cidda cadhootaana cadho alla buu leeyahay walciyaadu billah waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasbu wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minka ah inay rifca u noqon karto mas'alada tani waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka tirmidi warinaya ee uu xasaninaya wuxuu leeyahay إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا
haddii qofka alla uu khayr la doonayo mashkiladiisaba adduunka loogu horumariya dhibtiisa adduunku ku qaataa haddii khayr alla uu la rabo qofka kan adduunka intuu joogu dhibtiisa oo dhan qaataa waidaa araada lahu bicabdihi shar amsaka canhu bidanbih xataa yuwaafi bihi yowma alqiyaama ka alla sharka la doonayana dunuubtiisa dunida laguma abaalmariyo waa loo kaydiyaa si mar qura loogu wada oofiyo booska naareeda sare uu leeyahay uu gaadho waxaan leenahay markaas ibtilaaga qofka mu'minka ah ku dhaca iyo ibtilaaga qofka gaalka ah ku dhaca ama labada mashkiladooda kala qabsataa wejiyo kala gedisan bay leeyihin kow ibtilaaga qofka mu'minkii wuxuu u yimaadaa lilrifca watathiir in kor loogu qaado ama in dunuubta lagaga daahir yeelo waxaa kaloo ibtilaagu dadka mu'miniinta ugu dhacaa litamxiis in iyaga sufuuftooda la kala sooco kooda fiican iyo kooda xun la kala ogaado ma kaana allahu liyadara almu'miniina calaa ma antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min aطayib aayaadkaasi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniinta ah sidanay yihiin inaan lagaga tegaynin ee la kala saari doono alkhabiisa waطayib laakiin ilaahay wuxuu leeyahay wamaa kaana allahu liyuطlicakum cala algayb aybkana laydinma ogeysiinayo waana laydin kala saaraya maxaa lagu kala saaraya waa aayaadkii tacqiibka u ahaa uxud yani ibtilaa'aad iyo mashkilaadkaa ku kala baxaysaa markay mashkiladu ummaddu ay gasho ayaa la ogaanaya keeda munaafaqa ah iyo keeda iimaanku ka dhabka yahay keeda wax kale ku lifaaqnaayeen iyo keydii khayrku u waday mashkiladaa dadka lagu kala ogaado ama haddii layska wada nimcaysanyo la wada socdo dadku ma kala garto lama kala garto idan haddii la rabo mujtamac in tamxiis lagu sameeyo in la kala soco waa laabudda min ibtilaa'aat yani ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamayaa in dadka la itixaamo oo alla uu muujiyo maa fii suduurikum walayumaxisa maa fii quluubikum waxyaabaha laabtiina ku jira iyo quluubtiinu si ay u caddaadaan walayumaxis allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin waxasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamana wahum laa yuftanuun aayaadkaasoo dhami waxay sheegayaan koo waxaynu leenahay lilrifca ثانيا waxaynu leenahay litathiir ثالثا waxaynu leenahay ibtilaaga qofka mu'minkaa ku dhaca waa litamxiisi sufuufihim si loo kala saaro sufuuftooda tathiiru dunuub way waa xaqaa'iq ku sugan boostaro janno qofku inuu ku galo waa waxa sugaya bale waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalay muxuu tilmaamayay ibnu cabbaas ayaa ardaydiisii ka mid ah cataa ibn abi rabax buu wuxuu ku lahaa ma ku tusiyaa imra'a min ahli aljanna haa buu yidhi waa gabadha madoowe halkaa joogta buu ku yidhi gabadh suuxdima qabta oo madoowe meel fadhida waa xadiidkii sheegaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan ay u timi iyadoo ka cabanaysa suuxdimo dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi gabadh yahay haddaad rabtana waa kuu ducayn inuu alla kaa qaado haddaad rabtana waad iskaga sabri dabeetana jannaad leedahay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waan ku sabrayaa jannadaan rabaa laakiin marka aan suuxa un baan qaawismaaye ilaahay waxaad ii weydiisaa in alla cawradayda i asturo haddaba dadkuunina cawradeeda dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu baryey inaanay markay dhacdo cawradeedu muuqan ibnu cabbaas markuu arko wuxuu dadka odhan jiray ma rabtaan gabadh ahlu janno ka mida waa gabadhaa suuxdimaha leh halkaa fadhidu ku tilmaamaya idan qofku boosaro oo janna buu gaadhsiinaya dunuubtu ka maydhaya siday dadku u kala khayr badan yihiin buu ugu kala bataa dhibtu waa kii xadiidkii saxiixayn ku yaalay tilmaamayay ibnu cabbaas ayaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan usoo galay isagoo aada u xumadoonaya o aada u xanuunsanaya markaasaan idhi ibnu mascuud markaasaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xoog baad u xumadoonaysa innaka tuucaku wackan shadiida xoog baad u bugtaa nebigu wuxuu ku yidhi ajal haa waxaan u xumadoonayaa laba idinka idinka midisay u xumadoodaan markaasaa waxaan ku yidhi buu leeyahay ibnu mascuud baa wuxuu ku yidhi taa macnaheedu ilaahay rasuulkiisa waxa weeyaan inaad adigu laba naga mida ajarkooda leedahay yani maadaama adiga xumadaadu dhebel ay tahay ajarkaaguna waa dhebel buu noqonaya
nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ajal dalika kadalik ma min muslimin yusiibuhu adaa shawka fama fawqaha ila kafara allahu biha sayi'aatih waxuطat canhu dunuubuh kama taxuطu shajaratu waraqaha. waxaynu leenahay marka ibtilaagu macnayaal badan buu u leeyahy. qofka mu'minka ah, qofka gaalka ah, isaga ibtilaagu ku dhaca muxuu yahay? haddaynu nihi ibtilaagu waa qadiya laabudda inay waajahaan gaal iyo muslimba, ama ha noqdo mid faqri ama mid bukaan ama mid colaadeed, ama ha noqdo dhanka kale mid sulto, mid xoog weyn. watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas baa ilahay yidhi. xoog iyo boqortooyo iyo mulki iyo waxaan in la helo waa watilka alayaam nudaawiluhaa bayna annaas. gaal iyo muslimba waa lasoo maraya. kula numiddu yani ilahay wuxuu tilmaamaya kuwan iyo kuwanba min caطaa'i rabbikin wax laga siinayo. laakiin labada qolo laba macno kala gedisan buu ku yihi. binisba lilmu'miniina asaadiqiin markay yihiin wuxuu yahay baynu leenahay waa rifca, waa koryeelid, dembigoo laga daahir yeelayo, tamxiis sufuuftooda lagu samaynayo, tarbiya fiican oo iimaaniyo la siinayo iyo ajarka loo kordhinayo. markuu yahay ligayrihim ama lilmushrikiin ibtilaagu muxuu yahay? waxaan leenahay wuxuu yahay cilaajan wa tawjiihan wa indaaran wa icdaaran, intaba wuu yahay iyagana. ilaahay qur-aankiisa wuxuu leeyahy walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablik faأkhadnaahum biاlba'saaءi wadaraa lacallahum yatadaracuun. umamkii horaa ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala in rusul loo soo diray. ummadaha hore ilaahay wuxuu sheegaya in lagu qabtay bilba'saa wadaraa, inay dhibaato qabsatay. waa ummado gaaleed baa dhibaato ku dhacday. waayo ilaahay ciladuu sheegaya wuxuu leeyahy lacallahum yatadaracuun. idan waxayn leenahay waa lilcilaaj. bal nimcadu markay ka badatay inay fakeraan oo ilaahay usoo noqdaan subxaana wa tacaala. ilahay wuxuu leeyahy falawlaa id jaa'ahum ba'suna tadaracuu walakin qasat quluubuhum. alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wamaa arsalnaa fii qaryati min nabiyin ila akhadnaa ahlaha bilba'saa'i wadaraa lacallahum yadaracuun. hadday tadarucaa samayn waayaan, hadday isdhul dhigi waayaan, qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa haddana in nimco loogu bedelo. ibtilaagii mashkiladda ahaa hadday ilaahay ugu soo noqon waayaan subxaanahu wa tacaala, waxa la geliyaa ibtilaa kale oo binicma ah, in nimco loo dhiibo qofka oo iyana lagu itixaamayo bal siduu ka yeelo. lacallahum yashkuruuna yarjicuun. ilahay wuxuu leeyay uma badalnaa makaana sayi'ati alxasana xataa cafaw waqaaluu qad masa aabaa'ana adaraa'u wasaraa faأkhadnaahum baktatan wahum laa yashcuruun. makaana sayi'a alxasana baa loogu bedelaa. laakiin haddii kaasina uu markaasi ka suurtoobi weydo xaalatulisti'saal bay gaadhaan. markaa isti'saal in alla uu ku sameeyo kuwan laayo. ilahay waa kale falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kuli shay. markay alla ilaabeen subxaana wa tacaala ee ba'saagi iyo daraagii ay kusoo noqon waayeen ayaa ilahay wuxuu leeyahy fataxnaa calayhim abwaaba kuli shay. albaab walba waanu u furay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. laakiin hadday kaana aqbali waayaan oo ay kibir ka sii qaadaan xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. waxaan leenahay marka nicmada iyo niqmada, dhibta iyo dheefta, aragtida qur'aanka waa isku macne. labadubana waa imtixaan. labadubana waa imtixaan la eegayo mawqifka aada istaagaysaa wuxuu noqonaya. qofka bini aadamkaina noloshiisu markaasi waxay ka kooban tahay mawaaqiftuu istaagay markuu baraaraysnaa iyo mawaaqiftuu istaagay markii dhibtu haysatay oo laysugu geeyo ayuunbaa ah qofka iyo dhaqankiisii oo dhan ama noloshiisii oo dhan. waxaynu leenahay marka nolosha dunidu haddaynu rabno inaynu si dhaba u fahamno dhammaanteed waxay ku salaysan tahay alibtilaa alxayaati dunya. qur-aanku qisaska uu ina siiyo iyo ambiyadu qur-aanku ka waramaana iyaguna waxaynu leenahay waa annamaadij albashariya
السامية أو الناجحة في الابتلاءات وياه كله القرآن كشاكي يعني القرآن كيالان والنماذج أما وتصاليال كله بني آدم أو يناكو ساقضي امتحانك التاريخ الإنساني مكا وحويان والتجربة الإنسانية أما وابتلاء سقفك بني آدم كي وصامري قرآن قصص كينوغا ورماء أردمنا وقال امتحانك إلا مريي كقولي ستي هي قال امتحانك إلا مريي كساقضي أنبيضنا iyadoo ay marka hore basharka tusaale u wadayiin ayay haddana nebi walba haddaad qur-aanka usii fiirsato wuxuu mutakhasis gaara ku siiyey nooc min alibtilaa uu basharka aakhiro xujo ugu yihi in isaga la mariyey oo ay macquulta intuu bini aadamku maro fii xuduudi taaqa albashariya inuu ka xadgudbi karo qiyaamaha inuu shaahid ku noqdo waayo ambiyadu waxa weeyaan waa shuhadadii maalinta qiyaame dadka oo dhan ku markhaati kacaysay مثلا نماذج فضض والظلمرة هدان تلمامه أشد الناس بلاء بين كتل المامه نبي الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أبني مؤيد تصالكوه قرآن كروحين أغوى الرمية إن لغوئي تحامي أبني مؤ والله تلمامه إنه إلهي سبحانه وتعالى مركا ورينا شكاحري أو قبوبي oo da gaadhay oo isagoo da'aw ilaahay bariyo subxaanahu wa tacaala oo ilaahay wiil siiyey laakiin awlaadu mar hadday imtixaanka ka mid tahay ambiyada nebaa ku jira markaa takhasuskan la siiyey oo carruurtiisii lagu imtixaamay ibraahim iyo yacquub labaduba imtixaanaadkan way galeen nebiyullaahi ibraahim waxaa la faray kii uu dadba ka haystay oo ilaahay weydiistay inuu gowraco baa la yidhi gowrac waa imtixaan nin weynaaday oo da' gaadhay oo muddo badan aan dhalin oo hadda ilmaan la siiyey oo ilmihuu hadda yaro taracrucay oo uu xoog yaro yeeshay oo haddana amar lagu siiyey midhkaa keliyana inuu birta mariyo laakiin uu ku guulaysto markuu aqbalay inuu birta mariya ilaahay faraj u furay waa imtixaan aada u khatiira imtixaanka aabbanimo ibraahim la mariyey tanoo qura maaha xataa haddaad axaadiista u fiirsato xadiiskii bukhaari muxuu tilmaamayey markuu ismaaciil intuu soo kaxeeyey hooyadii uu kaga tegay baytullaahi alxaraam halka imika oo iskaga dhaqaaqay muxuu uga tegey waa nebi qoyskiisii lagu itixaamay laakiin waxaa loogu itixaamay bal qoyskan siduu ka yeelay iyo diintiisa qoyska kani waxay u geystaan dabeetana waxaa la yidhi intaad ilmahaaga iyo haweentaada qaadid meel lama dega agee oo hal qarbadoo biyo ah iyo qarba timira intaad u dhigto iskaga tag nebi ibraahim wuxuu dhigay haweentuu qabay iyo ilmihiisii meel lama dega ah dabeetana uu iskaga dhaqaaqay haweentii way qaadan kari weyday meeshaan cidlada ah ee aan reera deganayn ee biyo oolinee waxba waxay haystaana ay tahay wax qarbad ku jira harag yaroo la maalaasay in timiroo ku jirta iyo in biyo ku jira la garan karo maalmo dabadood inay go-ayso cid ay ciirsato kale aanay meesha oolin ibraahim markuu iskaga dhaqaaqay ka daba timi xadiiska bukhaari suu sheegaya waxay tilmaamayaa inay muddo ka daba hadlaysay yaad nagaga tegaysaa ibraahimow oo u jawaabi waayo iska socday muddo markay daba socotay su-aal weydiisay allahu amaraka bi haada bay tidhi cidladan aad nagaga dhaqaaqaysa ibraahimow ma allah ku faray haa buu ku yidhi ilaahay baa faray subxaanahu wa tacaala idan laa yudayicna bay tihi haddii alla ku faray haddaa alla nama dayacaye maca salaama yani iska tag mar haddoo alle amarkii ay tahay banaankaa fadhfadhiista oo labadaa qarbadna haysta ilaahay hadduu siaan go-aamiyey nololba siduu alla go-aamiyey ku jirta waanu yeelaynaa bay tidhi ilaahay subxaana wa tacaala waa taqaanin wuxuu u sameeyey iyo sidaa noloshii loogu fudaydiyey iyo ilaa hadda ashacaa'iru tacabudiya midaynu ku xasuusanno reerkan iyo mawqifkiisii asacyu bayna safa walmarwa iyo kacbadan iyo waxaan oo dhami waxayna xasuusinayaan qadiya min qadaaya alcaqiida atawakul cala allah dad sameeyey waa tajriba ibtilaa'iya uu nebi galay tusaale kale aan idin siiyo masalan nebi galay tajriba ibtilaa'iya ah nebi dhallinyaro oo qurux lagu itixaamay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam aakhira wuxuu ku markhaati furi doonaa gabadh kasta iyo wiil kasta oo intuu mushkilada tani gala dhowrsoomi waaya ibtilaa baa la geliyey ah in quruxdiisii ay fidnayso
khalqadiisii alla uu abuuray subxaana wa tacaala inay fidnayso oo dadku isu tilmaamaan ilaa xad ay gaadhsiisay gurigii boqortooye uu ku noolaa haweentii joogtay inay hungurayso. imtixaankan u fiirso, qof la hayo oo guriga lagu hayo oo la leeyahay oo shaqaalo ah, laakiin gabadh sayidatul qawm ah oo mansab sara leh oo qurux leh oo xoola haysato caynkeeda u yeedhayso oo diidan. waa tusaale oo ah lishabaab. dumar qurux badan baanu nimiyo, dhul gaaleed baanu nimiyo, meelo lagu barwaaqaysan yaha la nimiyo, mushkilada badan. aakhire nebi yuusuf baa taagan oo markhaati ah oo shaahid ka ah qadiyadda tan inuu insaanku hadduu iimaankiisu dhammaystiran yahay inuu isxejin karayo mahmaa kasura ama ibtilaagu inkasta oo weynaado. waxaan leenahay qur-aanka haddaad u fiirsato nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nebiyullaahi haaruun waa tusaalay basharka u yihin daalimka ka hortegiisa ah. waxay tusaale ugu yihiin in kelimatulxaq lagala hortago cid kasta. aakhire cidda ku marmarsootee tidhaahda waa la xoog badnaayo waa la weynaayo waa kan. waxaa la tilmaamayaa nebi haaruun iyo muuse inay joogaan iyagoo cidda loo soo diray ayaa ahayd fircawn. wamaa adraaka ma fircawnu. fircawn waa ninkii intuu dadka ishortaagay ummad ugu khudbaday ana rabbukum ulaclaa maa calimtu lakum min ilaahin hayri. bale fircoon xukumkiisu waa dictator aan dunida weli lahaynin taariikhda caalamiga ah. akbar dictator waa kaa uu qur-aanku ka warramayo. waayo miyaa aragteen nin dawlad xukuma oo shacabku xukumaya qayb ka mida ku xukuma inaanay rag dhalin? iyo dunida ku aragteen nin xaakimo oo yidhaahda reeraha qaybo ka mida ummadda aan xukumo wiil ma dhali karaan? fircoon intuu istaago yidhi wixii reer banu israa'iil rag ma dhalaan. sanuqatilu abnaahum wanastaxyi nisaahum. raggu ha madho haweenkuna ha hadho. wamaca dalik nebi baa loo soo diray waajiha mushkiladda intaa leeg. waa aakhiro tusaale cid walba hortaagan. yani waxaan leenahay ambiyadu waa stars ama waa xidigo. waa fabihudaahu muqtadi kuwa alla nebigiisa ku leeya calayhi salaatu wasalaam. sida daraaddeed xataa haweenka ambiyadu waa tusaalayaalkaa qur-aanka sidaa ugu taxan. marka kullu shay iyagaa tusaale ka ah. kullu shay iyagaa tusaale ka ah. haweenku waxaynu naqaanaa nebiye kuma hayno amhiladoodii, laakiin qur-aanku wuu tilmaamaya mawaaqif akbar taaqiya haweenay is hortaagta oo mulkigiisa iyo boqortooyadiisa iyo wixiisaba ka doorbida inuu ilaahay guri jannada uga dhiso. aasiya haweenaydu fircoon qabay waa ka alla subxaana wa tacaala qur-aanka ka warramaya mawqifka istaagtay oo ay ka doorbidayso boqortooyada tan iyo xoolaheeda iyo ninkan le anhaarta hoostayda maraysa iyo mulku misriya waxaanaan haysto dhan waxay ka doorbiday inuu alle bayt filjanna uga dhiso. waxaa qur-aanku misaalu inoo siiyey haween kale maryamo ah. waxa uu qur-aanku tusaale inoo siiyey muuse hooyadii. waxaa qur-aanku tusaale inoo siiyey lilxayaa gabadh xishoonaysa nebiyullaahi muusa inantii ama hablihii uu u waraabiyey. waxa qur-aanku tusaale inoo siiyey maalan haween duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqayso, laakiin shaqadu inaanay keensanaynin inay xayaageedii ka tagto. waa labadii hablee walaala ahaayee nebi muuse ugu yimi ceelka. dadku markuu xoraabsanayaan adhigooda ama xoolahooda meel ku haysanaya markay raggu ka dareeraan meesha intay weyda way shaqaynayeen. haween bay ahayd duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqaystaan. waayo aabahoodna wuu gaboobay, cid kale u shaqaysana ma haystaan. laakiin xishmadoodii iyo islaamnimadoodii kamay tagsiinin, shaqadu kamay tagsiinin. aakhire gabadh kastoo tidhaahda duruuf ilcamal baa igu kaliftay waxaan inaan sameeyo waa shaahid qiyaamaha loo soo taagayo u taagan. waa shuhadaa. waxaan leenahay qur-aanka waxaa qiso ku aragtaan xukaamta maalan
ambiya ilaahay halkan u dhigay aakhira ku markhaati kaci doonta qofku markuu siyaasi noqdo unbaa suldadu gashaayo waxa kana wuu fasaa ambiya ilaahay soo taagayaa ah xukumkii ugu fiicnaa ee basharkoodu inuu ahaa waktiga iyagu maamulayeen alcasru dahabi lilyahuud qoomka yahuudda ama reer banu israa'iil loo yaqaano waxay yidhahdaan taariikhdooda waxa ku jirta wakti ay u yaqaaniin alcasri dahabi waktigii dahabka ahaa waa goorma waa goortay labada nebi u kala dambeeyeen maamulka nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan waa laba nebi sulaymaan aakhiro wuxuu tusaale u yahay nin kastoo xoole iyo badhaadho iyo boqortooyo iyo wax lagu itixaamo tajriba buu galay tajribadii hore way ka yaro labaclabac tidhi waa kii fardaha iyo waxay yaro ilowsiiyeen wuu ku xanaaqay yidhi ilaahay dikrigiisa ilaahay wuxuu weydiistay tajribo ka adag in la geliyo subxaana wa tacaala mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi ilahu igu itixaam buu yidhi inkaa alla u dhiiba subxaana wa tacaala ilaahay baa u dhiibay boqortooyo aan ciddan ba helin laakiin tii abaalkeed buu mariyey wuu ku guulaystay waa kii mawaaqiftu isagoo jin iyo insi iyo shimbiro iyo wax walba xukumaya marka carshiga loo keeno carshu balqiis tilmaamayey hada min fadli rabbi liyabluwanii waa kan ilaahay fadligii laakiin waxa alle uu saan u yeelay maxay buu leeyay wuu fahamsan yahay qasdiga waxa kani u dhaceen inuu alla itixaamo buu leeyay inaan shukri noqo iyo inaan shukri noqin waa ka ilaahay weydiisanaya rabbi awzicni an ashkur ilaahay buu weydiisanaya inuu alla subxaana wa tacaala uu u mahadnaqo idan kullu rajul siyaasi aakhiraysa soo taagay ilaa duruufi siyaasiya ayaa keensatay in caynkan la sameeyo in kan la sameeyo in kan la sameeyo aakhira ambiya taagan duruuf siyaasiyo xaali ka soo martay oo umam dhan hogaamiyey oo laakiin ku hogaamiyey xaq iyo sawaabka waxaan leenahay amhilatu lfaashiliin nada qur-aanka iyana way ku badantay qowmu caad samuud waxaan qoom qur-aanku ka warramayo dhan waa umam tajriba la geliyey oo tajribadii ku fashliyey sida daraaddeed waxaan leenahay fahmi alxayaa aw alxayaati addunya haddaynu rabno inaynu si wanaagsan u fahamno waxa weyaan inaynu u garanno inay tahay daarun lilibtilaa meel la ysku itixaamayo waxaa nolosheenoo dhanna inaad aragto mawqif kastoo aad taagantahay inaad xasuusnaato inay tahay imtixaan xagga alle kaaga yimid hadduu nimco yahay hadduu barwaaqo yahay hadduu badhaadho yahay hadduu cilmi yahay hadduu aqoon darro yahay wax kasta waa imtixaan xagga alle ka yimid oo lagugu eegayo mawqifka aada iska taagi doontaa kuu noqon doono waxaana qur-aanku uu kuu tilmaamay mid kasta cid ku guulaysatay inay jirto maalan nabiyullaahi ayuub wuxuu tusaale u yahay basharka qof kastoo xanuunka xanuun ugu darani uu ku dhaco tusaale u yahay qiyaamaha waxa loo soo taagaya nebi ayuub oo ku sabray oo tusaale ku ah mashkilada tan inaan xanuunka badan iyo dhibaatadu marka kugu badato inaanay xaq iyo diinta ku dhaafin karin ama alle inaanay ku ilowsiin karin subxaana wa tacaala qiyaamaha ayuub baa kugu markhaati furaya calayhi salaam waxaan leenahay marka calaa asaasi hada alfahmi haddaad qur-aanka ku akrido aada maanta isku daydaan qiraa'a jadiida inay akridaan min faatixatihi ilaa birabbi annaas waxaad arki doontaa iyo marka aad fahmi doontaa qur-aanku qisaskan uu ka warramayo nolosha tan waxaad garan doontaa nolosha tan iyo waxaad u joogtaa inay tahay in lagu itixaamo kullamaa diintaadu sii kordhana in imtixaanadaadu sii adkaan doonaan waxaad garan doontaa ambiyadu inay ahayd dadka kuwii ugu imtixaanaadka badnaa waxaad garan doontaa haddaad nimacaysantay iyo haddaad badhaadhaysantayba inay imtixaan ku jirto haddaad nimco ku jirto iyo haddaad ku jirto mashkiladba inaad labadaba imtixaanaad ku jirto dabeetana inay laba miduntay inaad welweliyo kugu dhacdo iimaan darro dunida aada doorato iyo inaad nafta dunida xakamayso o aada aakhiraya jannada doorto oo aliithaaru bilxayaati addunya aw aliithaar bilyawmi alaakhir waa labada midun ilaahayna wuxuu tilmaamayaa cidda tan dooratana cajalnaa lahu maa nashaa cidda takale doonatana in alla subxaana wa tacaala uu badiyo haddii adigu aad
bal tu'tiruuna alxayaata addunya haddaad kuwaa noqoto ama yuxibuuna alcaajila kuwa allow ku tilmaamaya kooxda haddaad ku biirtana inaad kooxtay qolada daarta aakhiro u haysata noloshana waina daara alaakhira lahiya alxayawaanu law kaanuu yaclamuun ama qolada alla ku tilmaamaya yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya aan fahmin qasdigii nolosha dawaahirta dunida way fahmeen iyo saa loo manaafacadsado iyo kownkan alla taskhiiriyey sida looga faa'iidaysto waa almanaafic ahaahira fi lxayaati dunya way garteen laakiin maqaasidii may garanin waxaan ka dambaysay oo ahaa inuu shukri noqo muu garanin ama inuu sabro labada midna muu garanin ikhwatii fi lcaqiida ma jecli inaan hadalka idinku badiyo waayo hadalku hadduu bato dhibtiisu iska leeyahay waxaan idinku soo koobayaa kelimada muxaadarada idinku koobantay waa kelima waaxida oo ah nolosha adduun waxa loo baahaya inaynu fahamno oo aynaynu u fahamno inaynu imtixaan ku jirno qofku hadduu imtixaan ku jirana wuu warwaraa waa taqaanin wiigaad usbuucaad imtixaanka ku jirto dugsiga ama jaamacadda iyo usbuuca kale isku mid ma tihin usbuuca imtixaanka ballamadoo dhan dib baad u dhigtaa danaha kaleo dhan waad iska dhaaftaa waxaasi oo dhan waayo waxaad isku daydaa marxala ah inaad u diyaar garowdo imtixaanka si aad natiijo u keeni lahayd waxaan jecla un risaaladaydu inay ku koobnaatay inaan idiin soo gudbiyo nolosha fahmo oo waxa u fahamtaan inay imtixaan ku jirtaan imtixaankanina waa maalmahan yare aan nooshiin ee 60 sana ayaad ku jirtaa waa imtixaan guriga markaad ku noqoto iyo xaasku waa imtixaan caruurtaadu waa imtixaan xoolahaagu waa imtixaan tacliintaadu waa imtixaan aqoontaadu waa imtixaan quruxdaadu waa imtixaan waxaad haysato dhami wax kastoo aad haysato calaa hada almindaarun ku eeg haddaad xoola leeday haddaad faqritay haddaad bugto hayso dhan in dadku uu kaa satrooyi haddaad xoola leed inaa moodi dadka inaad ka satrootay labadaba imtixaan unbaad ku jirtaa une waxaad maskaxdaada in badan ku xidhaa jawaabta saxaasaad mar kasta u bixin kari lahayd si aad isugu dayi lahayd inaad jawaab saxa ka bixiso noloshan adduunyo qofka muslimkiina inuu u fahmo ibtilaa'aadka dadka muslimiintaa ku dhacaya inay ugu dhacayaan lihadihi alasbaab in dunuubta alla kaga maydho in manzilo sare lagu gaadhsiiyo uxud ilaahay markuu sababaynaya waxa la yidhi waliyattakhida minkum shuhadaa manzilatu shuhaada waa boos loo baahayo qofka muslimka in la gaadhsiiyo laakiin miyuu gaadhaya haddaan dee dagaalku dhicin oo la laynin ma gaadhayo waa in dagaal dhaca way dadna la laaya haddii la rabo boos shahaado in la gaadho walidalik baa ilaahay dagaalka waxyaabuu ku sababeeyey waxaa ka mid a waliyattakhida minkum shuhadaa idan waa inaynu u aragnaa noloshan oo dhamm inay imtixaantay imtixaankaasina labadaa waji inuu leeyahay qofka mu'minka inuu yahay in dembiga lagaga maydho boos saro oo janno in alla uu ku gaadhsiiyo subxaana wa tacaala iyo noloshooda in la isku baro tamxiis uu ku dhaco ay waxay isku fahmayaan kooda kartida le iyo kooda iimaanka dhabka iyo kooda munaafaqa in mashkilaadka kana isku dhex gartaan ibtilaa'aadka kuwa gaaleed ku dhacayaana inay u yimaadaan litawjiih lacallahum yatadaracuun lilindaar lilicdaar akhiiranna daktatan in cadaabku haleeli doono ama booskooda naareed markay buuxsadaan wixii taa loogu talagalay markay buuxsadaan inay booskooda tegi doonaan ilaahay waxaan ka baryayaa idinkii annagaba inuu ina waafajiyo imtixaankaasi kuwii ku guulaystana alle subxaana wa tacaala inuu inooga dhigo waxaan dhammaantiina idinkula dardaarmayaa in badan inaa akridaan taariikhda dadkii ambiyada iyo saalixiinta iyo dadka waa wanaagsan sababtu waa maxay waa namaadijtii guulaysatay qofka bini aadamkiina star kama maarmo waxay idhahdaan noloshu muthul bay isaga baahantay wax kaa yaro sarreeyaad hiigsataad isaga baahantay xataa waa qadiya ijtimaaciya gaaladu ay fahamtay sidaa daraaddeed bulshada waa in loo sameeyaa dad ay hoogsadaan waa taqaanin maanta dadka waxaa loo sameeyey wax nujuum la yidhaahdo laguma tilmaamin inay dad yihiin waxa laga dhigay inay xidigayiin xidiga kubadda cagta xidiga shaneemada xidiga heesaaga nujuum walanaa nujuumteenu innaga waxa weeyaan waa ambiyada iyo mursaliinta iyo saalixiinta iyo dadkii toosanaa kuwaas baa nujuumta kii lagu daydaba lagu hanuunayo kuwaas baa nujuumta ilaahay leeyahay fabihudaahu muqtadi waxaan idinkula dardaarmayaana si naftiinu ay u hesho xooggii ay ku geli lahayd dagaalka kan ama tajribada tan ay kaga bixi lahaydna inaad in badan akhrido bal
kuwa guulaystay ee imtixaanaadka ku guulaystay oo qur-aanka iyo sunnada ka warramayaan iyo kuwa faashiliinta ee qur-aanka iyo sunnada ka warramayaan imtixaanka ku guulaystay waayo hadduu nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ayiin kuwii ku guulaystay boqortooyada ama maamulka fircawn iyo namruud iyo kayrkiina waa kuwii ku saaqiday hadduu yahay nebi ayuub kuwii nimcada iyo kuwan ku guulaystay kayrkii baa lasoo helayaa kuwii ku fashilay yacni nebi kasta iyo tusaalihi cagsigiisa baad soo helaysaa ilahay waxaan ka baryayaa inuu xaqayna waafajiyo wallahu aclam wabillahi tawfiiq bismi illaahi raxmaan raxiim guddiga maamulka waxay ka cidi daaranayaan dib u dhicii ku dhacay muxaadaradan oo waqtigeeda intaanu ka dheeraa kana horreeyey sababtoo ay keentay muxaadarooyinkii iyo xilligii qadadii salaada oo isa soo riixay ee dib soo siqay sidaa daraaddeed baa waxaa moodaa in maaragtay barnaamijkii maanta lagu talagalay iyo waqtigii la haystay ay kala dheeraayeen taana ay keentay maaragtay isriix ka yimid xagga barnaamijka taasu marka waxa weeye guddiga nidaamka waa ka cidi daaranaya iyo maamulka midda kalena waxa weeyaan nadwadii hadda loo fadhiyey ayaduna sidoo kale way doogtay oo waxay dib ugu dhacaysaa xilliyada dambe haddii waqti loo helo maxaa yeelay waqtigeedii waxa weeyaan waa la dhaafay haddana waxaan insha allah wax ka sheegaynaa su-aalo la xiriira mawduucii uu sheekh mustafa soo jeediyey su-aasha ugu horeysana waxa weeye mustafe wuxuu sheekh cumar faaruuq noo sheegay inaad haysid warbixin ku saabsan waqooyiga soomaaliya oo la xiriirta dacwada iyo nolosha waddanka hadday jirto wax ma nooga sheegi kartaa mana hadday warbixin tahay dee wakti badan bay isaga baahnayd laakiin duuduub ahaan soomaalidu waa dad afka wax isaga sheego oral society ah maadaama ay dad wax isu sheegayiinna ma aha dad wax ka qarsoomaan see daraaddeed meel kasta isugu yimaadaanba waa war uun waxa lagu hayaa in badan baana warramayseen baanu malaynayaa mar hadday war uun tahay maalin walbana waddankan waa lala hadlaa ama telefoon lagula hadlayaa hebel ka yimi yaa caynkan kollay meeshaan ka imaadaan tilmaamo dhibaatooyin baa ka jiray dagaallaa meella wax waliba nabadda ayay ku koraan inta nabadi jirto dacwadu way kortaa marka laakiin nabad la waayo wax waliba hoos bay u dhacaan ama dhibtaa badataa intay nabaddu jirtay dacwada xawligeedu aad buu u dheeraynayay xoog baanu u socday runtii wax badanna way qabatay laakiin markay dhibaatadu timi waxay noqotay inay juhdigeedii oo dhamm isugu tago uun bal sidii dhiigga qofka muslimkaa loo badbaadin kari lahaa ama islaaxu daati albayn dadka sidii looga samayn kari lahaa waayo magaalooyinka qaarkood dee waa laga guurayba ama way ka dhammaadeen may jirin markaa faslun dambe cidi kama odhanin waayo waxay noqotay meel laga guuro waxa ugu badan ee ay markaasi abnaay saxwa isku dayeenna waxay ahayd uun sidii dadka nabad looga dhex raadin lahayn ay dhacdo walilaahi alxamd waxaan rajaynayaa inay wax badan ku guulaysteen kuwoodii ugu dambeeyeyna waxaan aada ugu rajo weynay inay ku guulaysanayaan meelihii ugu dambeeyeyna waxaan jeclay usbuucan gudihiisa uun inuu ka soo baxo wax tilmaamaya heshiis dhammaystiran oo nabadeed inuu dhaco taasina bifadli illaahi subxaana wa tacaala bay ku timi iyo juhuudda dadka isxilqaama ay ka mid yihiin culammada waddanka degani dhanka dacwada ee kale meelaha aanu dagaaladu ka jirin runtii dacwadeedu xoog bay u xoogan tahay bii'ada qaarkoodna aad bay ugu faaftay markii ay joogsatay duruustii rasmiga ahayd ee dhulalyowgii waaweyne ka socdayna waxaa loo fikray bal in loo bedeli karo macaahid in la furi karo litadriib ala'ima waducaat laga soo saari karo a'imo iyo ducaad dadka dib u wacdido oo waxgaadhsiisa iyagana walilaahi alxamdu qaybaa lagaga guulaystay qaybaa soconaya qaybo kalena waa taxta daraasa cumuuman waxaan odhan karaa uun hadday nabaddaasi soo noqoto isbeddel weyn baan rajaynaynaa
iyadana ilaahay baanu ka rajaynaynaa subxaana wa tacala inuu xasiliyo wallahu aclam. su-aasha kale waxa weeye salaan kadib sheekhu waxaan ku weydiin lahaa taygu ama qoorxirku ma dembiba mase ma aha? hadduu dembi yahay waa xadkee dembigiisu waa la harkee? waxaan aada uga cudur daaranayaa inay su-aalo dhowruun had iyo goor soo noqnoqdaan yurub gudaheeda, waayo waxaan xasuustaa shirkan ka horreeya kuwii meelahan lagu qabtay inuu sheekh cumar ka jawaabayey inta la weydiiyey taygu muxuu yahay. waxaan kasii xasuustaa jawaabtu idin inuu ahaa hadduu wax laysku qurxiyo yahay oo mara yahayna quruxda idinagama xigto, hadduu wax gaali suga kaysiis iyo wax kale yahayna waxaasi diinta kuma banaana. markaa bal idinku wax ku xukumo baalku hadduu aa leedihiin. maalan dadku in badan waxay isku adkeeyaan ficlan waxaa jirta taqaaliid gaaladu ay lahayd oo soo tatawurto marka dambena noqdo shay ijtimaaciya. waxaa laga warinayaa ragga qaar inay ku doodayaan in bahalka yare karaafaanka la yidhaahda ee gaarka ee asalkiisu uu ka yimi maalan aragti ah inuu saliib la xidhanayo dabeetana berigii dambe qaabkan loo dhigayo saasi. ragga badh baa laga wariyaa su-aalo caynkaa ku saabsan oo markaa asal diiniya u yeelaya. walidalik ba waxaa laiga sheegay nimankan eeraanti inay yidhahdaan xablu shaytaan bay idhahdaan bahalka gebigiisa waa kuma sheegaane. dagaa waxaan uga jeedaa bahalkaasi hadduu maro caadiya iska iyo mara uuna de waa maro, haddii afkaar kaloo ka dambaysa ay jirtana waa meel. masalada qura anigu aan cabsida badan ka qabaan waxay tahay miyuu yahay tashabuh lilkufaar? ragga badh waxay arkayeen inaan ahayn, dadka badhna waxay u arkayeen inay xaggaayiin. marka anu waxaan odhan lahaa masalada aniga waxba igu xijinin shiikiini ku celiya haddana uu fadhiyaaye isagoo ha ka jawaabo. bismillah. su-aasha kale waa su-aal runtii aada maanta usoo noqnoqotay oo aada maaragtay dad fara badan soo qoreen. waxaana weeye sheikh ma la ciyaari karaa ciyaarta loo yaqaano shatranji ama iskako? waxyaabaha la ciyaaro waa shatranji ama iskako, ma la ciyaari karaa? su-aashaasuna saaka dhowr jeer bay soo noqotay marka lilahmiya. as'ilada fiqiga mala waxay ku fiicneed culimadii iga horreysay in loo gudbiyo, laakiin cumuuman shatranjka bahalka la yidhaahdaa horta kolley ma aha waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waxay cayaari jireen. waana cayaar ka timi dadka reer bariga bershiyanka iyo hindida iyo waxaasi. cayaarahana culamadu way kala soocaan. waa wax nasiibka ku salaysan, nasiib ku salaysan. waxna waxay yidhahdaan waa waxaan ku salaysnayn nasiib ee ku salaysan takhtiid maskaxeed ama fikriya. waxa nasiibka ku salaysan waxay mutafiqiin inta badan ku yihiin inay mamnuuc yihiin, iyagoo xadiidkii naradka u daliishanaya ama laadhuuda iyo waxa la halmaala. walidalik sheekh shariif cabdinuur maruu ka fatwoonaya wuxuu tilmaamayaa waxa loo yaqaano dubnada, laadhuuda, turubka, kuwaasi ee nasiibku uu ku jiro. yacni marka hore waxbaa lagu qaybinayaa, waxbaad nasiibsanaysa, kadib baad wixii ku cayaaraysa. kuwaasi inay mamnuuc yihiin. fatwadiisaasi waxaa ka mid ahayd waxyaaba aan nasiibku ku jirin ee takhtiidka caqliga uun ku yimaada, sida shaxdii culamada soomaalidu inta badan cayaari jirtay iyo shatranjka bahalkan la yidhaahdo iyo waxa la nooca inay bannaan yihiin. a'imatu lfiqh markaynu dib ugu noqonno, ibnu kathiir wuxuu naqlinayaa almadaahib athalaatha, imaamu axmed iyo imaamu malik iyo abu xaniifa inay iyagu isku raacsiisan yihiin shatranjku inuu mamnuuc yahay. alimaamu shaafici isagoo shuruud saddexa u qiraya waxay ka sugayaan inuu karaahiya u arkayo, ay weliba kusii tafsiirayaan karaahiyadaasi inay tahay karaahatu tanziih ee karaahatu taxriim inaanay ahayn. inta aan ka ogahay ilaa hadda cidda tidhaahda xadiis baa loo hayaa isaga ku soo aroorayna asal ma leh. wax xadiisa oo saxiixa oo nebiga ka sugan oo shatran iyo shax ka warramaya xalaal iyo xaaraantoona ma jiro. waxaa quraya sugan bacda aqwaali asaxaaba iyagoo qolaca cayaarisa intay u yimaadaan yidhahdeen ma hadihi tamaathiil alatii antum calayha caakifuun ay ku tilmaameen.
haddii markaasi ay tahay wax keensanaya qofka inay salaadii ka mashquuliso ama colaad abuurto ama caynkan la iska daayaaba roon. haddii kale ilaa hadda kolley anigu shakhsiyan waxaan u janjeeraa qolada qabta inaanay xaaraan tahayn. wallahu aclam. bismillaah. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. walaal ilaahay dartiisa ayaan kuu jeclahay. waxaan ku weydiinayaa imtixaanku wuxuu keenaa wax la yidhaahdo stress. maxaa dawo u ah haddii qofku isku arko stress badan? waa sida sa'aalkuu soo qoray, macnaheedana waxa weeya maaragtay sheekhaa faahfaahin doonaa. bismi illaahi raxmaan raxiim. waxyaabaha dhibtu inaga haysato waxaa ka mid ah kolley su-aalaha had iyo goor sida loo dhigo waxaad moodaa inuu halkan fadhiyo kursiga qof la ydhaha master no-all, yani nin wax walba yaqaano wax walba ka jawaabi kara. cilmu nafs waxba kama aqaano, laakiin waxaan ogahayno inuu ilaahay kitaabkiisa ku tilmaamayo alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub. duu cilmu nafsigu wax ka warramo uu yahay nafta bini aadamka iyo saa loo xasiliyo, ilaahay qur-aankiisa wuxuu inoogu tilmaamayaa in alle xuski iyo weynidiisa xasuusasadeeda iyo acmaasha saalixa samayntooda iyo badsigoodu inay tahay wax qalbiga qofka bini aadamkii ku dego. bal waxaan jeclay inaan tajribaba idiin sheego. waxaa jira maanta jidhka bini aadamka waxyaabaa lagu ogaaday waxaa ka mid ah hormones inuu soo daayo waxay ku tilmaamaan dheecaamo, ifraazaat. dheecaamada jidhka bini aadamka soo daayo way tiro badan yihiin. dheecaamadu jidhka bini aadamka soo daayo waxaa ka mida bay yidhahdaan dheecaamo ay hadda u bixiyeen morfinaat dimaaq ayay af carabiga ku yidhaahdaan. morfinaat dimaaq, morfonku waa dee bahashan yare ama lacabee lagu sakhraamo ama acsaabta lagu dejiyo ama caynkan. morfinaat dimaaq bay u bixiyeen. doctor moxamed cali baar fii kitaabihi almukhadaraat, tabiibkaasi muslimkaah wuxuu ku tilmaamaya weliba inuu yahay aqoon biologiga ama aqoonta dhakhtarnimada ku soo korodhay 73 wixii ka dambeeyey. wuxuu leeyahay ilaa hadda waxaa dunidu og tahay ilaa 200 maado oo jidhku uu soo daayo oo qadaayaadkaasi ku saabsan. 200 maado ee baxsiga ku jira 40 ka mida ayaa ilaa hadda la rumaysan yahay buu leeyahay ta'siirka ay sameeyaan. dabeetana wuxuu u daliishanaya uu leeyahay morfinaadkaas, morfinaatu dimaaqa la yidhaha, waxay ku bataan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala si dabiiciya jidhka bini aadamka ugu soo daayo qofku markuu alamka iyo dhibta dareemayo. dabeetana waa waxyaabaha keena qofku inuu xoog aanu u dareemin dhibaatooyinka. gaar ahaan buu leeyahay maalan dumarku markay uurka leeyihiin ilaahay baa ku badiya subxaana wa tacaala si uurkan iyo culayskiisa iyo dhibtiisa uga yaraado. jidhkeedu wuxuu soo daayaa morfinaatu dimaaq tiro badan oo maskaxdeeda stressiska iyo waxaan ka ilaaliya. waxay dumarka ugu badan yihiin bay yidhaahdaan marka ay umulayso oo aan laxdada ay ugu dhibta badan tahay haweenku ayay morfinaatu dimaaqu jidhku soo daayana ugu tiro badan tahay min nicam illaahi si looga ilaaliyo foosha dhibteeda. oo lowbuu leeyahay haddii aan bahashaasi jidhku aanu soo daynay gabadhiba dib uma umusheen malaha. haddana waxaa kaloo la og yahay buu yidhi maanta sayniska horumarka uu gaadhay chinesku irbado yarar baa jira ay dadka ku mudaan iyadaan qofka la suuxin oo aan lagu mudin tiyaatarka inta la geeyo suuxdin lagu mudin ayay dhakhaatiirta chinesku qof qalaan. inta irbado yaryaroo tiro badan laga taago ayuu qofku sidii camaliyadii suuxitaanka oo kale ku dhacdaa. dabeetana waa la qalayaa, dareemina maayo midida lagu qalayo. wuxuu leeyahay doctor moxamed cali baar waxaa la ogaaday neerfayaashan gaarka ay ka mudayaan inay yihiin meelaha awaamirta bixinaysa in hormoonaatu dimaaqa kane ay soo bataan. dabeetana qofkii alamkii aanu dareemaynin. sheekhaasi wuxuu kitaabkiisaasoo kale ku tilmaamayaa. waxaa kaloo la ogaaday buu leeyahy iimaanka iyo cibaadada sida salaada iyo soonka iyo waxyaabaha lamidi inay badiyaan qofka bini aadamka inay ku bataan morfinaatu dimaaqaasi. taasi waxay sababtaa buu leeyahy qofka mu'minka ahi inuu dhibaatada uga adkaysi badan yahay qofka aan iimaanka lahayn. walidaalika baa wuxuu leeyahay waxa maanta aqoonta sayniska ay sheegaysaa marka qofku ay sii badato dikrigiisuba iyo alle xuskiisa iyo weynidiisu marka ku sii weynaato qofkaba xasiloonidiisu inay sii badanayso iyo dhibta dareenkiisu. sida daraaddeed waxaan leeyahay walaalkayga su-aashan soo weydiiyey intilaaqan min haada
hadduu stresses iyo wax la mida yahay waxaad ka cabsanaysaa. waxaan leenahay alaa bidikri illaahi tatmainu alquluub. waxay ka wariyaan zayn alcaabidiin ayaa waxaa la yidhi baa xanuunsaday, adin baa bararay, dabeetana waxaa la yidhi waa lagu qalayaa. dhakhtarkii baa wuxuu yidhi bunji cab. bunjigu waa baashan soomaalidu boocmadowda tidhaahdo, soomaalida qaar baa imka walwalaaqdo cabbaa lay sheegayay, geed boocmadow soomaalidu odhan jirtay iniyihii weeyaan. bunji bay yidhaahdeen cab. dabeetana wuxuu yidhi bunjigu maanka ma doorisaa? haa baa lagu yidhi. iga daa buu yidhi wax caqliga dooriyo dooni maaye salaad baan gelayaa ee idaa dakhaltu fi salaa buu yidhi fafcalu maa badaa lakum. markaan anigu ilaahay is hortaago idinku wixii aa qabsan kartaan qabsada. uu tukaday bay yidhahdeen, intuu tukanayey ayaa la qalay bay yidhahdaan. yani markuu ilaahay is hortaagay iyo weynidiisa u xasuustay ayuu xataa midada dareemi waayey bay leeyihin. calaa kulli xaal akhi lkariim waxaan odhan lahaa un awraadda iyo dikriga iyo alla kacabsigaaga badso, insha allahu stressaskani way kaa yaraanayaan. ogsoonowna dee imtixaanka haddii la guulaysto iyo haddii la saaqido toona wax weyn oo aada weyday ma jirto, waa wax iska caadiyo berrida la geli karo mar labaadee wax siaa looga warwaray inaanu ahayn. wallahu aclam. sheikh waxaan weydiinayaa, haddii aan diido inaan gacan ku salaamo ama gacanta ka salaamo dhakhtar nin ah oo uu misana dhakhtar ii yahay oo uu jidhka qaarkii uu gacanta taabsiinayo sida dhegaysiga wadnaha, iga soo jawaab arrintaas adoo mahadsan. macnuhu waxa weeye gabar baa waxay leedahay waxay u tegaysaa dhakhtarkii, nin dhakhtara, marka waxay diidaysaa inay gacanta ka salaamto, haddana wuu fiisataynayaayo hadhow wuxuu taabanahayaa meelo jidhkii ka mida si uu u fiisateeyo. marka macnuhu waxa weeyaan salaantiisee ugu diidayaa oo gacantaan ka salaamayay maadaama jidhkayga uu taabanayo mar kale oo uu fiisataynayo. macnuhu su-aashu saasaa maaragta moodaa inay qoran tahay. iska imtixaanuun malaa layla damcayn inay silada fiqiga ka jawaabo iyadoo sheekh cumarna joogo. cumuuman waxaan odhan lahaa asalka inaan rag iyo dumarku istaaban waa asal fiican oo islaamiya, kastoo laga yaaba culamada badhan inay ka murmuranto salaanta gaar ahaan. laakiin waxaan leenahay waxyaabo badan baa jira oo islaamku lidaruura kuugu baneeyey. haddii marka hore aad dhakhtar gabadha helayso, iskaga tag ninkan iyo taataabashadiisa oo dhan. haddii gabadh la helayo dhakhtar ah, weliba waxaan ogahay inkastoo dhibaatooyinku ay iska tiro badan yihiin yurub meelo badan oo ka mid a in la dalban karo qofku dhakhtarkiisa inuu isagu doorto. hadduu dhakhtarna inuu kusoo baxo inuu odhan karo satisfied kuguma yihi, kuguma faraxsaniyay dhaaf haddaad tidhaahdo waa kuma faraxsanida uu iska tegaya, waad yeelan kartaa mid kaleo aad ku bedelato. laakiin walow ay dhacdaba kolley yurub meelo badan baa la jooga, waaba laga yaaba tuulo yar aan dhakhtar kalaba lahaynee hal nin iska haysto inaad joogtaba. marka hadday saasi dhacdaba ama dee duruufaad sayi-a baad ku jirto aan kugu simaynin inaad la sugo dhakhtarkii gabadha ahayd inta imanaysa iyo waxaas, hadday jirtaba taasi waxaan leenahay dee wixii daruuro kuugu banaaday ee daruuradu ay kuu banaysay yeel, laakiin dee adnahaasi siyaadinina hodhan intanba hadday badato tu kalaan kusii darayaay. atala gabadha dhakhtarku markanba jirkayga wuu taataabanayaaye guriga markaan imaadana jirkayga ma taataaban karaa? waa maya. markii dantu iyo baahidu ay taallay unbuu taataabanayaaye inta aan dantu iyo baahidu jirin yuu taataabanin. wallahu aclam. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. walaal mustafa waxaa tidhi dadku waxay u kala imtixaan iyo balaayo badan yihiin siday u kala iimaan badan yihiin. haddaba haddii arrintu sidaas tahay, ummaddeenna soomaaliyeed waxaa haysta arrintaas ama dhibka aan u wada jeedno, haddaba ma dhihi karnaa dhibkaasi waa dembi dhaaf? waxaa jira imtixaanku ama balaayadu waxaana idhi dee ma aha dhanka xunoo qure xataa nimcada ah, waa nooc min alimtixaan baynu idhi nimcada lafteedu. kaasi waa mid. waa midda kale soomaaliya mushkiladeeda ama mushkilaadka dadka ku dhaca waa acmaashoodu ka ratibma, yani ictibaatan isagama soo degdega uun ee acmaashay dadku sameeyeen camalku saalix hadduu iyo kor loo qaado nataa'ijda ka timaada
iyo hadduu camalka kor qabanaya xun yahay natiijada ka timaada way kala gedisay kaasi waa mid idan soomaali mushkiladda haysataa horta min acmaalihim bay ka timid dadku dhibtaasi mawaaqifta iska taagaan ama intay ka geystaanna waa ka mid qofka mu'minka ah ee soomaaliyeed ee aan isagu dhib geysan ee waxaanoo dhibi soo gaadhay ee ilaahay ugu sabray ee mushkiladii intuu xallili karaya isku dayay inuu xallilay ficlan isaga ajar bay u tahay kii inkaarta qabay ee isagu dhibta warinayayna ficlan habaar bay ku sii tahay waxay ku xidhan tahay markaa qofku iyo mawqifku iska taagay mushkiladda tan qofkii mawqif fiican istaagayna khayr bay u tahay insha allahu tacaala qofkii isagu mushkiladda samaynaya ama dhibtan sii wadayna inkaar kale u sii tahay laakiin hadduu dadku wanaag doonayo bimajmuuci acmaalihim unbaa alla ku abaalmariya alumma waa isku xidhantay majmuuca camalihim aakhira dadka calaa niyatihim lagu soo saara laakiin dunida acmaashooda waa isku xidhan yihin waa kii nebigu ku tilmaamay doonta qoladii wada fooshay ee ninku yidhi baa xagga hoose aan dalooliya hadday kusii daayaanna dhammaan way wada halaagsami haddii dee ay ka qabtaanna dhammaan way wada guulaysan idan waa mushkilaad ka yimi dadka dulmiga samaynaya marka ilaahay waxaan ka baryayn inuu dadka muslimiinta ka qaada dhibaatooyinka tirada badan le haysta dadka saalixiintana waxaana ilaahay u weydiinaya inuu fii miisaani xasanaatihim ugu daro kuwa inkaarta qabanayna alla soo hanuuniyo wallahu aclam halkaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa waktigii muxaadarada su-aalaha badankooduna waa su-aalo u batay fiqhi u batay sidaa daraaddeed insha allahu tacaala waxaan maarata u bandhigaynaa fadhiyada dambe ee culummada ee soo socda oo ay ka qayb geli doonaan marka halkaasa insha allah ku joojinaynaa muxaadaradan maantay ragga waxaa la ogeysiinayaa ama la xasuusinayaa inay safraan si gabdhuhu ay u horbaxaan waxaa kaloo jira albaab laga bixi karo oo gadaala oo raggu ay ka bixi karaan marka raggu intay xagga horey u bixi lahaayeen gadaal wax ka soo bixi karaan intooda xagga jidhana ha samreen oo gabdhaha ha siiyaan waqti ay ku baxaan jasaakum allahu khayr haddana waktigii cashada weeye kadibna waa maktabadii iyo maaragtay nasasho iyo salaadii maaragtay maqrib haddii ilaahay